idin garaacnay maxaa samay kartaan haddaad dhaqaaqdaan oo aad meel Mareykanka ama meel kale dhibaato ka geysataan bambooyinka idinku garaacnay weli waa haysanaa meelo kale ayaan haddana idinka baabiinin marka hadda inaad kala doorataan inaad sii jirtaan oo dowlad sii ahaataan oo nuclear la'aan shaqaysataan iyo inaan dhulka idinla simo oon idin baabi'iyo inta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada ay ku tala galnay maanta waa axad taariikhduna waa 22 bisha June sanadka 2025 waa barnaamijkeennii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idin soo gudbinayno waa barnaamijkeennii subaxnimo haddaba waxaynu ku soo gudbinaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda ku saabsan weerarkii lagu qaaday goobaha nuclearka Iran maxaa laga qoray maxaa laga yiri Iran inay kala baxday uraniumkeedii halka masaxba in gabi ahaantii la burburiyay masaxba wixii laga qoray oo dhan oo tafaasiila oo ilaa hadda laga yiri ayaan barnaamijka inta ugu muhiimsan idin kula wadaagi doonaa dhanka kale barnaamijka waxaynu ku faahfaahin doonaa Iran oo markii ugu horeysay sheegtay inay isticmaashay gantaalka la yiraahdo Khaybar kaasoo dhowr madax leh waxaana la sheegay inay daakum kaga dhigtay saaka Israa'iil meelo kala duwan magaalada Tel Aviv ayaa guryo badan ay burbureen haddaba maxaa laga qoray sheekooyinkaas barnaamijka idin kula waraagi doonaa waxa soo kale barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doonaa warbixino ku saabsan xaaladda guud sida ay tahay goobtii ay ku sugnaayeen 600 ee Ruushka ah ee khubarada dhinaca sayniska ee nuclearka ka shaqeynayay oo Iran ku sugnaa maxaa soo gaaray mise dhankooda lama duqayn haddaba xaalku siduu yahay haddaba tafaasiil ku saabsan sheekooyinkaas oo dhan ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiineynaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada maanta oo axada aan idiin soo gudbinayno haddaba barnaamijkeena waxaynu u kala qaadi doonaa dhowr qaybood qaybta ugu horeysa waxaynu kaga hadli doonaa weerarka Mareykanka uu ku qaaday goobaha nuclearka Iran iyo saameynta uu weerarka yeeshay haddaba marka ugu horeysa waxaynu kaga hadlaynaa meelaha la weeraray ee saddexda ay nuclearka ah xagee ku yaalaan marka la eego khariidada Iran meesha kale ee Ruushka iyo Iran ay shirkada ku yihiin ma meelaha la duqeeyo ku jira mise uu ka fog yahay meelaha ay ka baqayeen khaliijka in dhibaato ay ka timaado ma meelaha la duqeeyaa mise waa meelo kale haddaba marka dhammaan su'aalahaas oo dhan waxaan u malaynayaa qof walba inuu isweydiinayo haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa calaamadeeyay meelaha la duqeeyay waa meesha goobaabinta guud la geliyay saddexdan gobol ayaa la duqeeyay Asafaan iyo Kaashaan iyo Qum
saddexdooda marka waxaa ku yaala saddexda meel ee la duqeeyey nuclearka ah saddexdaa gobol ee horta ku yaalaan meesha goobaabinta la geliyey sida arkaysaana waa wadanka bartamihiisa waaye meel xeebana uma dhowaa meel kalena uma dhowaa wadanka gudihiisa ayay ku yaalaan haddaba marka warbixinta way sii kala qaadaysaa waxay leedahay saddexda meel ee nuclearka ee la duqeeyey waxaa leedahay asafhaan iyo natnas iyo fordo marka waxaa laga xukumaa gobolka la yidhaahdo qum nadnas meesha la leeyahayna waxaa laga xukumaa gobolka la yidhaahdo kaashaan asafhaanna iyada ayaa gobola marka meeshaas saddexdaas meel ayaa la duqeeyey ayaa la leeyahay oo duqayntu ay ku dhacday waayahay marka meelaha marka oo ruushka uu joogay ma meelahan la duqeeyaa maya haddaba markaan idi tuso goobaabintan meesha la geliyey saddexda meeloo la duqeeyey waxaa kasoo sukaysa meel badda saaran oo calaamada guduudka leh oo layidhaha booshhaar layidhahdaa booshhaar waa meel kale oo nuclear ah oo saaran badday saaran tahay baddaas marka waxay u dhaxaysaa iiraan iyo khaliijka udhaxaysaa khaliijka marka meesha ay ka baqayeen waa meesha layidhaha booshhaar oo aan saddexdaa goobaabinta ku jirta ku jirin oo badda saaran booshaar markaa waa meesha ruushka iyo iiraaniyiintu ay sheerka ku yihiin oo 600 oo shaqaalaha ruushka ay joogaan waa fahamnaa umalena marka booshaarka dhanka xeebtay saarantahay khaliijka xeebtaasay saaranta marka waxaa la yidhi booshaarka waxba dhibaataa looma geysan carabtina waatay ka cabaadaysa oo qaylinaysay oo yaana ku taabanin lahayd ruushkuna waa tuu lahaa meesha yaa laysku imaanay 600 shaqaalaha ii joogto mana ka qaadayo marka booshaarkaas sidiisaba isagu waa nabad qabaa sababtoo waxaa leeyahay isagu problem weyn ma qabo booshaarku cabsi lagama qabo meesha ugu weyn oo laga baqayay waxay ahayd meesha la yidhaahdo fordo meesha la leeyahay fordo meesha la leeyahay meeshaasaa marka ah meesha ugu badan ee laga baqayay oo dhibaatadu ay ka jirtay foordoodu marka waxay ka baxsan tahay waxay ka tirsan tahay gobolka la yidhaha qum oo gobol diimeed ah halkaasaa marka meesha loo dhaarsanaa waa meeshaas natnaska iyo asafhaankuna iyaguna waa meelo dhulka hoostiisa qodnaa laakiin kaas wax la mida ma jirin waayahay marka waa usoo noqon doonaa wixii marka hore waa inaa fahamnaa maraykanku halkaa marka maxay ku dhufteen 6 bam oo midkiiba yahay 14,000 oo kilogram macnaha waa 14 tan 14,000 oo kilogram 14 tan waa midkiiba ayaa lagu weeraray dhowr diyaaradood ayaa weeraray marka meesha wararka qaar waxay leeyihiin foordooga keligiisa labaa ku dhacday gantaalo layidhaha tomahawk oo ilaa 30 ahna waa lagu duqeeyey waxaasaa ku dhacay meesha laleeyahay marka uu leeyahay marka waxaasaa ku dhacay maraykanku leeyahay waa ka takhalusnay waa intaas haddaba marka aanaditu soo warbixin laga qoray waxaa leeyahay markii ugu horeysay taariikhda ayaa bam culayskaas leh oo aan nuclear ahayn caalamka la isticmaalay waxaana ay noqotay meesha la yidhaahdo fordo meesha lagu garaacay bamkaas aqwa qumbula fil caalam marka laga soo tago nuclear macnaha bam nuclear ah marka laga yimaado bamka kale ee ugu weyn ee meel lagu weeraray adduunka waa bamkan 14,000 oo kilogram ciyaarmi ah waa 14 tan midkiiba diyaaradda keligeeda waa diyaaradda keliya ee caalamka ee qaadi karta bambooyinkaas waxaa la yidhaahdaa B2 aa la yidhaahdaa marka diyaaradaasaa markaa waxaa leeyahay duqaysa ayada dhanba 2 xabbay qaadaa marka waxaa leeyahay diyaaradda marka intaysan duqayn meesha ka hor ayaa waxaa weeraro ku qaaday oo gantaalaha difaaca iiraan mashquuliyey diyaaradaha israa'iil kadibna waxaa yimid diyaaradahan waaweyn gantaalaha ay ku dhufteen
wararka qaarna waxay leeyihiin intaysan diyaaradaha kanu imanin ayaa waxaa kusii dhacay meesha gantaalaha maraykanka ee layidhaahdo tomahawk ayaa meesha ku dhacay ayaa wararka qaar leeyihin marka waxay leeyihiin gantaalaha marka hore horeeyey kadibna marka hawshaas saasay ahayd waayahay marka maxaa dhacay marka intaas ay dhaceen markiiba Netanyahu ayaa soo hadlay qofkii ugu horeeyay oo ka hadlay isagoo ahaa wuxuu u mahadceliyay Mareykanka wuxuu u mahadceliyay Trump wuxuu sidoo kale sheegay nabadda mararka qaar tahay awood in lagu keeno qasab in lagu keeno kan inay tahay wixiisa watoort hadda kadib waxa walwala ma qabno waa kaasoo wuxuu maanta dhan u mahadcelinayaa Mareykanka Trump saaxiib fiican waaye dagaalku nala galway waxa yar kadib waxa isaguna soo baxay oo banaanka iskeenay ninka leeyahay Trump dhinaciisa midigta waxa taagan madaxweyne ku-xigeenkiisa dhankana wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ayaa taagnaa ninka marka si jees oo kibir ka muuqdo oo maartay ayuu meesha uga hadlay baadqeenu dhahay hadda kadib wax dhibaato iyo walwala oo Israa'iil ay qabto nuclear in maartay ay meeshaas ay ku yimaadaan ma jiraan ammaan waay nimanka kanuna waa niman weligood dhibaato badna argagixisa taageera argagixisada weligood waxay ku hadaaqi jireen al-mawt li Amerika wal mawt li Israa'iil hadhimato Mareykanka Israa'iil hadhimato wixii dhihi jiray waay wax kala ma idin dhahay wada hadalka imaal hadaa doorataan inaad dagaal aadaan waa idin celin doonaa oo macnaha meel kale hadafyo kale iyo goobo kale oo aan weerarno ayaan haysanaa marka hadalkiisa dadka wax falanqeynaya waxay ku tilmaameen hadal isla weynin badan oo ku jiro